وعليكم السلام ورحمة الله. سود هذا حوتاكو لما انت سود هذا عبريرتي لوتشو سودو عبرير عادي لما انت قاعدة برنامجك وعليكم السلام أبايو عدك الشعب سيلب سودو أبايو ما شاء الله أبايو. وعليكم السلام أبايو. لما أنتي سودو هذا هالجماعة يوضنيين لما أنتي حوتاكو لما أنتي سودو هذا وعليكم السلام علي سودو قاعدة برنامج كحافظي كالجاية سلام سريع سودو هذا ما شاء الله. وعليكم السلام سودو هذا يلا إيه قبضة وعليكم السلام ورحمة أبو صوت وأذيقنا ما شاء الله. برنامج كقاعدة نظيفة محمود علي صوت وأباي أذيقنا لما أنتي صوت هذا
وعليكم السلام أباي نظيف الصوت لو ما شاء الله صوت له هذا ماما صوت له هذا I love you دبادتي صوت له هذا وعليكم السلام والرحمة محمد صوت أباي صوت لو قالي لما أنتي صوت لو هذا مضنا إيه مروين شير قريب برنامج كقاضة وقامة ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد لما أنتين دافات دونو ميركستو أتكتشوكتان هبين وعن وناكسن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم مدنا إيه مروين فاميلي إيه فريند ساوتهين هبين وعن وناكسن اسكسو نقط وعن أوحيس له لما أنتين دافع عالم كسان أقول نهانا إلهي بان كبري عقلك يجي مسكحة يدي إنه سوء اليو ضد استعل استعلنا إنه إيبان نقد لقان إلهي كبرينا انتاس علك يعيد أمبالوها الجميع يعني وحمود ده حوجا هرقب إيه وحبا يقول له هاي أنتان حوجا ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ويلك وحكستوي ماذا إن ما شاء الله إن حاجرت مظاهرات إن لسوق إيمانية لندن إن قف كستو موادن أو UK دجن إنه السوق يماذو وعن السوق صباح حنان استحسوسين نعاوة إن مظاهرات كاس عن كوض قيب قاعدنا دمانتين ضد كيجي لحسوقي أو كان يحسوق ضي إن سفارة كان السوق تجيو إن قفل بو إنجليز كدجن قف كي كجاري كرو يوروب تكلا كإيمان كرا دمانتين أو إسكت دوبا وحال ربع قرني ماذا إن أنجا أهيلنو وعليكم السلام ورحمة الله وهذا دمانتي ولا على يقول قالي أويل يقبل برنامج كقاعدة أو شير قراية هنسأل حسود وأباي وعليكم السلام ورحمة أباي هالجماصر عندنا سود دمانتي برنامج كوذا قيبي حافظية اللي حكومي جاية نقف كستا وإن قاعدة برنامج ك وحق ووحل إسكولي ووحيد هوية ووح أنا قرنا وذا قصية marka dhammaanteen oo isku duuban waa inaan calanka aan u shaqeynaa iyo ciid Soomaaliyeed Faadumo soo dhawo abaay adigana Cabdi ma sha Allah soo dhawo abaay adinka dhammaantiin wa calaykum assalaam wa rahma soo dhawaada maxay ahayd toonay mudaharaadkaas waa in laga soo wada qayb galaa wuxuuna ka dhacayaa talaadada hadii Ilaahay idmo subaxii baa la isugu wada imaanayaa waa inaan dhammaanteen xooggeena aan wada gelino waa inaan juudi xoog la aan gelino وإن دالكي كي أنت كسو دوش دقيسي هدانا أنا كديدين محيطون عيد كلا أنت كورنا قتي ما دنا قديدين يسمجرتو
waa in dhammaanteen xoogga aan saarnaa inaan qaranka annaga aan iska leena waxaan rabna annaga dhexdeena aan isku haysano wacalaykum assalaam waraxma soo dhawaada waa wax walba annaga aan isku haysano oo annaga dhexdeena ah laakiin qarannimada markii ay jirto in lagu soo weeraro ama lagu bamgareeyo ay jirto qof walba oo muwaadina waxaa mas-uul ka saaran yahay in qarannimada aan u wada hiilino oo aan ugu hiilino in qaranka dadka baaba-aya dadka iyaga ay yihiin mudaharaadkaas waa inaan wada xoojina wacalaykum assalaam abaayo soo dhawow fay dhoorre soo dhawo abaayo macaanta faadimo cabdi soo dhawo abaayo maxay ahayd toonay dhammaanteen oo isku duuban haddii aanan halganka aanan u qaybgelinina waxyi inta kor nooga soo dego uma malaynayo inuu noo shaqaynayo dhammaantiin wacalaykum assalaam soo dhawaada dhammaantiin abaayo soo dhawaada adinka dhan soo wada dhawaada maxay ahayd toonay waxyi kor noogama soo degayo waxaa la raba inay ciidda iyo calanka u shaqeeyaanna waa annaga soomaaliya haddaanan annaga inta aanaan dhiidhino aanan annaga qarannimada aanan u doodinin ama aanan raadinina waxaan u malaynayaa inaanan gaarayninin taasi waa taas waxaan halkan maxay ahayd toonay aan soo jeedinayaa oo kale baarlamaanka soomaaliyeed doorashada maxay ahayd toonay waxaan jeclaan lahaa dadad badan oo quality leh oo dalka in ay wax u qabtaan la raba in la soo daayo ayagana kuwa ku jira hore ugu jiray amiin jesow maxay tu calaykum assalaam waraxma soo dhawaada dhammaantiin amiin jesow maxay ahayd toonay dalxa haddii ilaahay ku rooyahay wiilka cabdifataax la dhaho asagana wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ah cali yar cali dhammaantii oo aan jecelaha isagana inuu maxay ahayd toonay doorashada dadka cusub oo la doortay inay noqoto qof walba oo muwaadina oo mas-uul waxaa kaa saaran qof dalka iyo dadka wax u qabanaya iyo diinta maxay ahayd toonay dadkeena la bamgaraynayana dad ka hadli karaa loo baahan yahay cali yaro cali wiilkaas la yidhaahdo wax badan buu qaranka usoo qabtay wiilashaas magacyadooda aan soo wada xusay kuwa waa xildhibaano kuwana hadday xildhibaano yihiin waa in maxay ahayd toonay hadda waa kaasaa dadadka ay ka doonanayaan codka waa inay codadka u wada fududeeyaan lana soo daayo dad wax ku ool ah oo qaranka wax u qabanaya waa in lasoo wada daayo dhammaanteen mas-uulkaa naga wada saaran ilaahay kuma darnaada barnaamijka qaada oo xaafadihii laga xukumay geeya ha soo fadhiyo nin maasha allah waxaan halkan usoo noqonayaa oo kale shalay waxaan arkaya hooyooyin mudaharaadaya mudaharaadku qofka bini-aadanka dhaliil uu qabo kusoo jeediyaa caalamkan annaga aan joogno bermishina laga qaata hadda london marka la aadayo iska tag laguma tago dowladda ogolaasho la weydiistaa ogolaashahaas dowladda la weydiista markay kuusoo ogolaato baa mudaharaadka waxaad u socotay iyo dhibaatada iyo waxaad ka dacwoonaysid aad dowladda aad u gudbisid waa lagu aqbalayaa haddii dowlad kale aad ku mudaharaadaysid waraaqahaas laga qaado safaaradooda loo geynayaa haddii aad rabtid waxaad igala soo qeyb geli kartaa qeybta masajarka haddii aad fareen ila tahay inta anigu dadka ma soo waxeeyo maasha allah qofkii raba halkaas oo dooda wax ka qaadanaya ama ka qabsanaya maxay ahayd toonay waxaa la geystaa waraaqahaasaa la geeyaa waraaqahaas markii la geeyo safaaradda ay ku socotana waa la geeyaa dowladda wadanka ahuna waa ku ogaanaysaa dad mudaharaadaya inaad tahay si aan adigana saftigaaga loo nabadgeliya adigana lagaaga nabadgalo in uu ciidan ilaaliya meesha aan loo baahaya wadankayga mudaharaadka qalad bay ka fahmeen qof baa cabasho diraya markuu cabashada dirayo waxbaa ka maqnaa ama ka maqnaan kara in uu oraahdiisa soo gudbiyo awaamiir loo gudbiyo aad jirta laakiin aad iyo aad baan uga xumay hooyooyinkii daraad soo mudaharaaday shalay soo mudaaraadayay actionka ay ku dhaqmayeen wiil bajaajilo ah xataa inay u qaateen madaxweynuhu ha noolaado adikama madaxweyne ka diriraad ahaydeen mase xaquuq ama wax aad leedeen ilmahayagii oo naga maqan baad u dagaalamaysan waan isweydiiyey okay waxaan kaloo isweydiiyey oo run ahaantii igu noqotay nudub igu noqotay ay tahay kenya oo dalkayaga duqaysay maxaa kulansiiyey iyo soo baxa la soo baxayay waanu wada arkaynay okay ilmaa isbitaalla ku jiro ay diyaarada soo bamgareeyeen waxaan fiirinaya daafaha gobolada wadankeena in looga mudaharaado oo la cabud waa kaliya ka mudaharaada anagoo dhan waa wada arkaynay intaas waan eegayna oo waan u jeednay gobolada intooda ka tira la eg dowlad wadan maxay toonay degmo soo baxday oo u soo baxday in dalkaas la duqeeyo ma jirnin gobolka banaadir oo dhaawacu ay hoostiisa ay yaalaan
oo loo wada jeedo isbitaalka ay ku jireen ayaguna inta soo baxay kama aysan mudaharaadinin ama shucuubtooda kama aysan muujinin waxaan arkaynay hooyooyin inta soo baxay mudaharaadya dhigaya banaanka soo istaagay wax tuuriyeynaya ilmahaygiyaa naga maqanay farmaajo ha dhaco ma ilmaha idinka maqan mase farmaajo hadda aad u socoteen taas adika idinku soo noqonaysa annaga dhan caqli baa ilaahayna siiyey wiilasha maqan meeshay ku maqayn adina waa ogtiin anana waa ognahay dawladuna waa ogtahay in wiilashaanu ay jiraan baalkii ii sheeg tababar ay jiraan mushaarkoodana waad qaadataan oo dawladdu way idi siidaa waana aad ogtihiinoo cid idinka dhacda iyadoon la ogeynoo ilmihiina adigu aad raalli ka tihin baa cunugiina ciidan ka dhigateen caawa wiilka gurigayga ii jooga hadduu yidhaahdo ciidanaa noqonayaa hooya permission wuxuu weydiisanaya ama fasax uu weydiisanaya waalidka uu dhalay haddii ay nool yihiin buu weydiisanaya wacalaykum assalaam waraxmat dhammaantiin soo dhawaada buu weydiisanaya okay fasaxaas uu wiilkaas uu ku weydiistay raalli baad oga tahay haddaada raalli oga ee banaanka halkaa ka mar baad dhiilay raalli baad ka tahay mushaar baad ku qaadataan awaamiirtiina goobo aad ku gudbisaan ama aad u gudbisaan baad leediin inaad dariiqa inta soo istaagtaan farmaajo dhac farmaajo kuma imaaninin xoog kuma uusan imaaninin wuxuu ku yimid waa ogol ummadoo dhan ay wada ogoshay dawladdu waa 4.5 qaybta qof walba ay ku leedahay ama qoys walba uu ku leeyahana meeshay u dhex fadhida oo ay taala cid inay ku soo xadgudubto la rabaawna ma jirto qof walba waxaad ogaataa wixii kaa maqan adiga ama aad islada waa kaa maqan yahay awaamiir loo gudbiyaa jirta saaka maxaa kulmiyey nimanka siyaasiyiinta markii aan u soo noqdo ee adinka idinla mudaharaada 7,000 oo gabdho ah la dhoofiye waxaan ogaada gabdhuhu iyo wiilashu inay wiilashu ay qaali yihiin wiilal la ogyahay meesha ay jiraan oo markii la wadayo loo wada systemka loo waday annaga dhan aan markaati aan ka wada ahay maxaa saaka soo kiciyey wacalaykum assalaam waraxmat soo dhawaada maxaa saaka soo kiciyey inay hooyo inta soo bodboddo ay tiraahdo ilmahaygii baa maqan 70 meeqa gabdho waxaa maqan 7,000 oo gabdho ah haddaysan ka badnayn baa maqan ciraaq qaybta turki kurdi ciraaqi gabdho soomaaliyeed baa loo iibgeeyey oo ka shaqeeya oo caawa aan wada ogno soomaalida qaarkeed ay wada ogyiin inta aan ogayna loo sheegaya gabdhahaas cawrooyin baa la iibgeeyey oo la gaday gabdhahaasu nimanka madaxda anigu shalay way ii ahaayeen oo saa kale ciyaalka yagiyaa maqan cawrooyinka aad dhoofideen xaggee geyseen war xaggee geyseen gabdhihii aad gadgadeen oo aad iibiseen hooyooyinka shalay qoraxda taagnaayo waxaan arka suubinayo gabdhihii la gadgaday ee la iibgeeyey ee salada iibka laga dhigay xaggee lagu sheegaa war diinta islaamka nafaraysa maxay xaggee ahayd gabdha in la beec geeyo wiil waaba nin oo tababar baaba loo diray oo weligeeda loo diri jiray dawladihii hore xataa markay joogeen gabdhihii la dhoofiyey maxay naagu uga hadli waayeen gabdhuhu ma looma ooyaan baa ya gabdhuhu ma looma ooyaanba waata habrihii shalay aan arkayna waxay dhigayaan 7,000 oo gabdho ah baa carabta daafeeda kurdi xataa u shaqaynaye ardigayagii iyo sumcadayadii baa la iibiyey wiilku muxuu gabadha oga xanuun batay gabadhuna ay looma ooyaan u noqotay wiilkana inay loo ooyo ay noqotay hooyadii daraad laamiga barooranaysaa weydiinaya waa kuwa maalin walba inta furaha idinku soo malmalaan nimanka doorashada u socdee caawa gabdhahay madaxdii shalay hore gudbiyeen caaway UN-ka odaga xiirana ah adooga alla cadab odaga xiirana waa inuu wadanka yaga ka baxa Kenyana bam garaynaysa kama uusan hadlina inta soo badu yiri iyaal baa ka dagaalamayay baashi ka dagaalamay war anigu Tigreeg haddaan la dagaalamo Tigreeg waa ninka maamul goboleedka ii sulbiyey Tigreeg waa ninka inta magaalada Muqdisho iigu yimid ibam garaynayay Tigreeg waa baarlamaanka xukunka ee fadhiya niman iyo naaga fadhiya kaarka saa inta oga wada xoqday soo saaray weeye Tigreeg wuxuu ahaa ninka madaxtooyada dhexdeeda calanka ka sameynayay buu ah Tigreeg caawa haddaan la dagaalamo Tigreeg wuxuu ahaa ninkii suuqa bakaaro madaafiicda inta ku malmalay intaasoo kun oo ciyaal allaynayuu ahaa Tigreeg wuxuu ahaa kulliyadda jaalisiyaad ninkii taariikhda Itoobiya ay ku leeyihiin ku xuskooda ku dhigayuu ah war goormeed annaga yidhi war Tigreeg haddaan saaka dagaal u aado yaa ii xaraantinimeeyey kaba soo qaad baadaan saaka u aado waata la leeyahay Itoobiya dagaal loo aado Itoobiya intaasoo awaamiirtiina farta soomayn dagaalkii iidaale 70 ciyaal intaas lagu qiyaasayo oo kun oo ciyaal soomayn kuwii lagu dhameeyay oo ayada loo sii ordayo la aadayay ya goormay marka noqotay in la yiraahdo Itoobiya ka dagaalamaya war cid ka dagaalamaysa mari Itoobiya warshadahu bay leedahay may maqlaysaa nimanka siyaasiyiinta oo aqliga ku foosho xuno
waxay leedahay warshada hubkay leedahay waxay leedahay ciidan intaasoo 100,000 ay haysataa ma fahamtay sida iyadoo kale wax beenbeeno la isku soo dhoodhoobayo la isku keenayo hadeer la isku xilxilaya ma ay laha Ethiopia waxay leedahay diyaarado intaas oo miigay wada leedahay maxay marka Soomaali maryoolay ku falaysaa oo qorigaba markuu qaado la dhacaya war maxaa lagu falayaa ii sheega maxay se Eritrea idinku falaysaa Eritrea Ethiopiadaad aragtay bay ayadu la qaday Djibouti daad aragtay bay la qaday maalin walba waxaan ku soo quflaa wareer hebel kaca wareer hebel kaca war ilmihiina kaca ilmihiina shalay markii la wadayana raali baad ka aydan cid aan ilmooda la weydiin hooyo aan ilmeeda la weydiin ma jirto na markaad ooyaysaan oo qaylinaysaan aawa gabdhihii la waday aaway ma weydiisan nimanka madaxda idii gabdhihii shalay ay beeceeyeen irtagayagii shalay ay beeceeyeen ma la weydiiyay okay nimanka siyaasiyiinta waxaan weydiinayaa yaa oo mooryaanta ah waxaan weydiinayaa su'aalaya oo idin su'aalaya yaad rabtaan inaad u talisaan dawladdu waa 4.5 qabiil walba saaka waa idin eegaya labada indhood buu idinka eegaya waa la idin wada arkaya cid idin soo daw calaykum assalaam wa rahma cid idin soo daynaysana subaxa saakaya anigu uma malaynaya inay ila muuqato dad ana ugu aqli liita aniguna xibanta aan baarlamaanka kulay hadday magac guud noqoto iyo hadday mid gaar ahaaneed noqoto saaka inaan idin doorto diyaar uma yaa idin siinaya marka doorashada وعليكم السلام ورحمة الشمس سودو يا إذن سينا يا دور الشضة حقات ملايين يسان دور الشضة إنا إذن كعيدتو ورساكي أو إلماي قل لبام قرينيو أو أدوتشدين إن إلماي قد ديارة إنتان لقود دقيي دول كان نساس لو قراعي أو حولها أركتين لبابي بعد ساكي واحد ساطورتين أضاقا وحا يري طوري يونيد نيشن كايستا با وحو يري إلمي سومالي بحالكا لقي ور إنتو أنيقا نينكا عدان كاوا ميسا يستو أو وقت وانتا كان واحد لقلسو الدولين لويديني توصل adiga ku su'aal adiga gabdhaha dhoofideen aaw aqligiina miyuu idin sii waay dadku oraah iyo maskax adiga way ka shisheeyaan war oraah iyo maskax anagu adiga way ka shisheeyda aqliga yagu wuxuu na siin waay in saaka inta wadanka yaga iyadoo la bamgareynayo inaad tiraadaan maxay ay toonay ilmihiini waa la dhoofiyay ilmihiini Ethiopia ka dagaalamayaan aqliga fooshuun yaad ugu sheekaysaan yaa idinka aqli liita oo aqliga xunka aad ula timaadaan war waxaad moodeen waqtigii waayihii hore ee dadku aad u malaynayseen inay jiijiifaan miyaad subaxa saakaya moodeen saaka indhaha la isku wada hayaa waa la soo jeedaa haddaad Kenya adigu qancinaysan annagu Kenya erba waxaan u soconaa mudaharaadkeedaan London ugu soconaa Kenya annagoo ku mudaharaadayno oo sheegayna wax allaaliyo waxay qabto qof kasta oo Ingiriiska degano mas'uul waxa ka saaran calanka iyo ciidda inta u soo baxday ilmaha la laynayo ama dadka la laynayo waa dadka yagii dalka lagu soo duulayana waa dadka yagii hubuura Kenyatta maalin walba waxa u shaqeynaya mid daba dhilif ah baarlamaanka waxa ugu jira mid daba dhilif ah siyaasiga yagu waa siyaasi daba dhilif ah markaas waxa la leeyahay reer hebel cid loogu waxaynay ma jirto baarlamaanka dhan aad u jeedin reer hebel buu ku dhisay waa 4.5 qof loogu xukumaa una ma jirto waxaan arkay wasiirka warfaafinta qora u dhaaranaysa qolo walba waxay ku joogtaa dawladda 4.5 ay ku joogtaa cid bariyeed ku joogta lama arko cid walba waxay ku joogtaa isku darsasho wax la isku darsaday ku joogan way la socotaan maxaa idin soo haray war ninka saakay inta u dhawaaqanaya Kenyana u jeeda ilmihiisi inta diyaarada lagu bamgareeyay xoolo iyo naf iyo maal inay isku raaceen ninka saakay u jeedaa inuu saakay hooyo maskiina u yiraahdo oo mushaarka dawladda ka qaadanayso oo ilmoodii mushaarkooda qaadanay inuu saakay u yiraahdo hala soo bax odaga UN-ka wuxuu yiri odaga UN-ka waa duli dhalay soo dhawaa baay bacanto odaga UN-ka waa duli dhalay wa calaykum assalaam wa rahma soo wada dhawaada saare iyo dhamaantii soo dhawaada odaga UN-ka jooga waa duli dhalo dameer dhalay ah waryaa cuna qabatayn hubbaa isaaran aan u wada jeedna annagoo dhan sidee aniga Kenya ay ugu duqaysay awaamiirta ay ugu duqaysay yaa miiska la soo fariistay ayadoo cuna qabatayn hub isaaran tahay oo ciidamo xumo Afrikaan oo calo shaqaystayaal wadanka iyaga ay joogaan haddana yaa siiyay haddana awaamiirta yaa siiyay aniga ay ugu bamgaraynayso war xagee u fararnaa war xagee annaga dhan aan ka wada xanuunsano ka wada jirnaa war wadan gacmihiisa inta saar loo xiray ilmihiisa iyo dawladnimadiisa iyo asaga in la xasuuqa war hawada yadoo xiran Kenya inay soo gasho ay diyaarada 9 saac habeenimo igu bamgarayso ma inuu odaga UN-ka joogo igu maran habaabiya Eritrea ilmaha ka dagaalamaya la yiri war ma inuu nagu maran habaabiya
وعليكم السلام سو دواده ورما inuu igu marin habaabiya nin weyni inta meel soo istaagay ee UN ka joogaale war anaga dhan soo xoolo ma wadaniino eber ma wadaniino dad wada maangaab amaniin war anigu waxaan raba qofka kale aan ku dhaliilo ama aan isku haysano laakiin awaamiirta meeshaan taalaw inta labada gacnood aniga la iga xiray caalamka xataa kama shaqayso in wadan inta la bamgareeyay la yiraahdo dara cuna qabatayn baa ku saaran haddana mid xumo dulli ah oo duuflaan la ii soo kiraysto habarti waa ooyaysa banaanka beesha caalamka haysta ayadoo leh naa maxaad la ooyaysaan gabdhaha yagaa waxaa fuulo carab fuusha nin Soomaali ah ee sala madaxa ahaa intuu ii gada baa carabu ka harkaysaa gabdhaha yagii ما يلا سعتان مركزات واحد ويسا ويلكاجي أو نظام إيه ماشي عاد أمري كرتد لو أجيهاي أو الدولة دويدين كرتد أو أدني كرتد أنت بشر جرائد قبستد ومال فريستد أدني كرتد وراني وحن بقى إيجا مقارن تبيه أو الدولة ده عاد سؤالي كرتد قبضها يجي عرضك يجي بعرب وسلسلة أنت قوة حرتين بالله وحينيا كوانا جدا كودي بقى أنت اللوجو يمد بالله وضا بامقرينيا ورعقل جاي وحقو كفارنا مركز ساكن لإستيراد الله حد لإستيرادنا هذا دبلجو عاية دبا لغو عايا نينكا ساكا كينياتي انت ilmihiisi iyo xoolihiisi iyo gurigiisi la baabi'inaya u jeeda ee baabi'inaya ee saakale ilmahayagii waa maqan shame on you Kenya dadnimo kuma dheera hubura Kenyatta ugaaliga cunaaw dadnimo adiga kuma dheera Arabu adiga dadnimo kuma dheera qof walba ana ka qaalisan Soomaali biyuur ah anaga ah war maxaa anaga itay wax maxaana wada foorariyay warkaayaga dawladda ku jira ama madaxweynaha shala soo ah muxuu uga baqaa oday hubura badhaadhiyo hubura ku dhudhi iyo alnahayaan iyo futanahayaan maxay uga baqaan war maxaad u baqdaan xaraayay masir baa la idinka wada haya kan baarlamaanka ku jira waa fulay haddaad tiraado war waxaan ma ka hadashid gabigood waa wada baqayaan haddaad tiraado war dadkan la leynaya ma aragtaan waa ka baqayaan hooyooyinka gobolka Banaadir joogow ilmaha ku jira isbitaalada ku jira hoostiina ku jira gobolkee u mudaaraaday halkee gobol ee inta u soo baxay yiri Kenya waxay dadka ku baabi'inaysa waa ka cunay Hirshabeelle waa fiirsanaya labada indhood buu ka eegaya Galmudug waa fiirsanaya labada indhood buu ka eegaya Puntland warkeeda daa waa eegaysa Koonfur Galbeed waa eegaysa gobolka Banaadir waa eegayaan war dadku miyaysan anaga nala dhalin la bamgareynaya war dadka lagu soo duulaya miyaanan anagu lahayn xawayaaniin yahay isku timid 24 saac waxa ooyaysa hooya ooyaysa 24 saac hooya la bamgareynaya 24 saac cidagayga dadnimada yadii baa lagu ciyaaraya markaasoo intay sitaa mutaxana waxa lagu leeyahay waa reer hebel wax la yiraahdo ma jirto cid reer hebel la yiraahdo ma jirto nin walba occasionka asaga uu leeyahay iyo halkaas wuxuu marinay kaliyo dadka ku ilaashanaya war wiilka filada fadhiya wax walba faraha la idinkaga qaaday wiilka ra'iisul wasaaraha ee Roobland loo dhiibay meeshaad rabla aad leeydan maalin walba farmaajo baad ku jirtaan war miyeednan xishoonaynin Kenya mid kale oo hadii qabiil uu wax tarayo qolada leh reer hebel xamar ka dhaxlay hadii uu qabiil wax tarayo mareexaan waxa lagu leeynayaa gadaal lagu leeynayaa waxaana ku leeynaya oo u keenaya daarood kale in adeerkiisa baa inta ku soo diray wuxuu leeyahay farmaajo sidoo meesha uga kaco dadkiisa xasuuq annaguna marqaatishaada sur waxaan ku wadaray inaan ilaalino fiirino inaan u jeedno ayadoo ganacsadayaashoodii la leeynayo ayagoo xuduudkii inta loogu yimaado lagu bamgareynayo ayagoo wali qarannimada iyaga u dhimanayo baan annaga dhan indhaha inta ka eegno baanaan koobka biyahanaan u dirayn war miyaa la isku kaaya cadaabaynin war dadnimadu xagee jirtaa war aqliga iyo maskaxdu xageed u maleynaysan inuu jiro hadii kii duuflaalka ahaa ee shalay cirdigayga iibinaya aan maanta raacsanay oo habar inta u soo baxda ay u barooranaysa annaga u jeedna inay lacag isku tuurayeen war soo walba uma fariisan hal nin ah oo siyaasi ah oo caawa ka hadli lahaa wallahi oo billahi oo tallahi hadaan arki lahaa intaas in la ego damiira ku jirtaan dhiilaha war yaad maamulaysaan bari mid baa soo istaagay markaas ku leey hadduu farmaajo soo noqdo dagaal sakeeya baa loo noqonaya Hirshabeelle uu ka soo jeeda wad gobolka uu ka soo jeeda biyasaas u dharbaaxan asuusan ka biya ka qaban Soomaali weyn oo isku duuban baad wax u qabatay aaway ee baradweyne aawa dadkii joogay Soomaali oo dhan baa idii wada gurmata maalinta idinku fororto oo aan la idinku eegin maanta waay maxay ku dhacday inaad u mudaaraad weysan gado oo walaalihiin ah maxay ku dhacday war dadkii isbitaalka ku jira koobiya dad u geeyay maxaa loo waayay war gobolka Banaadir ninka jooga Umar Finishow dadka la soo bamgaray inaad fiisid ugu tagi weysaan maxay ku dhici weysay war gudoomiyaha baarlamaanka inaad inta u tagtaan dadka aad soo aragtaan maxay ku dhici weysay war yaad xilka u sidaan
جهنم بيا اللي يدكوا ورابيه بيها عذابت الله إذا ورابيه ياد مدح وتهين ياد مدح وتهين haddaad ummadda aad madaxda aad u aydan isbitaalada aad ugu tagwaysan war maxaad qabtaa qalbigay u ranta waxba kaama qadaalay qalbigay dawo u tahay war maxaad kabigii la wada gabanaysaan maxaad la wada dhuumanaysaan war ma kaarar baa laydinka hayaa laydinku xoqday war macjaradaa laydinka duubay ilaa waxaan waa ragmad daraad naagaa soo baxay marka ilaahay waa la soo baxaya kuwii hoosteena lagu cunayay ee aan u jeednana damiir aan ugu dhaqaaqnaa weyn war miyaa la isku kaaya cadaabeen maanta yawm alqiyaame culuma ka hadlaysa arki maysa siyaasigii waa asagiyaa dantiisa wata siduu maxamed cabdullaahi farmaajo meesha uga tegi lahaa war wallahi inuusan tegayn oo bilaahi inuusan tegaynin adikaa wada tagaysaan oo fashil weliba ku wada taagan war maxaa isku kii soo beegay maalintii la yiri Kenya ha lagu mudaaraado oo dadku ay ku mudaaraadi lahayn iyo maxaa isku soo beegay adika mudaaraadkiidii waxaad raali gelineysaan Uhuru Kenyatta waxaad raali gelineysaan odaga Ismaaciil Barambara ee jooga Djibouti joogay wasiirnimo caana xataa qadar uu isugu shubay waay gabigin shisheeyad wada raali gelineysaan ummadayadiisa ugu wada tumanaya doofaarayo isku yimido damiirka iyo dadnimada aan lahayn war wixii xisaab dawladda ku maqano ummadda annagoo dhan baa inta xafi meel isugu tagnaa weydiin karnaa oo su'aali karnaa maxaa keenay laami inta la dhoobto ayadoo isbitaalada ay wada yaalaan dhaawaca ay wada yaalaan maxaa koos gareeyay war maxaa koos gareeyay inta dhiiga lagu kara oo madaxaana wada xanuuno oo dadnimo ma liidin markaasuu Kenyaatigu intuu nagu cayaaro kuwooda Kenyaatiga inta nagu cayaaraan waxay yiraahdaan Soomaalidiina nimankiina siyaasiyiinta ah baa noo shaqeynay war soo si walba uma anaan ragmana uma anaan baabi'inin ya illa talamaayne haddii saakil yiraahdo ay wiilashaan madaxda oo jooga dawladda xukuumadda ay dhiilaayeen war waxaan ordon laga taga ay dhiilaayeen mid kale wuxuu leeyahay inta odagii cadaankaay oo madaxii xiray Uhuru Kenyatta in adeerkiis seediga u Uhuru Kenyatta baa waxa la wariyaa janbal ku dhawaaq adigu anaguna aan tuurne wariyaa filimka dhigaysaan shaleema Soomaaliya iyo shaleema Equatorial ku soo gali jirnay cid idinka yeelaysana wallahi inaysan jirin oo bilaahi aysan jirin dad annaga ugu caqli xun annagana saaka waa idinka shisheynaa waryaada cirdiga yagii baad iibiseen oo duruucda yadii baad iibiseen oo dadnimadii aan lahayn baad iibiseen shalana madax baad ii aydan qoysaskiina uma aydan ahayn qabiilkiina uma aydan ahayn annagoo dhan baad madax noo wada ahaydeen intan banaanada saasna loogu wada kaarikayo carabtii u liidatana wada fuushay baa waxaa leeyahay ayaa sabax mudaharaad asa inta soo baxday nacala ciridiyadiina wada faasha xun la ku yaale inta meel fadhiisataan nidaam wax ku doonto oo dad haday idinka maqayn waa idinka lacagta dawladda qaadanaye waryaada edab yeesha oo dhiibsada oo dadka walaalihiina u mudaharaado oo ajirka iyo dadnimada aad ku helaysiin ilmihiina meeshay joogaan iyo meeshay idin jiraan intaba waa aad taqaanaan waraabartii ilma ka maqayna annagaa ilmihiina idinla raadinayna keena teleefanadiina annagaa idin tusayna oo idin wacayna ilmihiina shalay magafaa banaanka u taagnaayo wada arursanayay oo wada xaraysanayay markaasaa saaka inta wiilal yaryar wada qurux badan laga soo dhigay waryaada wiilka laba wiilashaad u jeediino saraakiisha maantii dhawaad ku dhimanayay ee Hirshabelle ku dhimanayay yaa dilay midaad adig ku aasteen baad dilay haye waxayna ku qanacsanaan dalkooda inay u dhintaan ayagoo kutubada inta soo waysta calanka Soomaaliyeed meel walba uga mudayn ayagoo dubinta saa wada qaninay waryaa yaa dilay ma nin kale oo cadaan oo cirka iiga yimid baa dilay mid kale oo Soomaali ah oo culimo ah baa dilay haye asagoo saale dalkiisa u shahaday calanka Soomaaliyeed saa gacanta ugu dhagan haye kaasi miyuusan ayn kaasiba dadnimu ku dhintay midka saaka la soo daba baraya kaaskiisii ah oo lagu badaraya markaad hooyada soo waashay waryaa bari u talinaysaan xaraaya bariya idin dooranaya dadku idinkama caqli yara wiilal yaryar baa inta meel istaaga waa soo fakan waa soo boodin xagee ka soo boodin ciyaala suuqiya duflaalada wada xagee ka soo boodin ma Itoobiya ninka Eritrea jooga inta soo boodo ku imaan kara Puntland ku soo istaagi kara aqligu ma taasaad moodeen annaga inaad waryaa ebernaay waa la idinka shisheeyaa calankana waa loo halgamayaa iyo ciidda indhihi noosantaa doorashana wallaahi baydnan helayn oo bilaahi inaydan helayn haddaad haysaanna qabrigayga guba xaraaya wuxuusta wuxuus baad wadatiin gabigiisaad u wada dhantihiin war ma waxaad aragteen dad dalkoodii faahinta lagu siiyey dama kale raali garanaya waxaasa wax la waxaysma ah
warweli ma aragteen cimri intaasaan wada jirnaa daldalkiisa ciidankiisa xataa ka hadlaya dadka tiradooda in la keeno waa siyaasi dhan shala madax buu ahaa madaxweynuu ahaa wasiir buu ahaa markaasuu ku leeyahay dadka maqan waa in tirakoobkoodii la keena dadka maqan waa in la soo ogaada ciidankoodii baa fahal lagu siiyey ciidankii dalka uu lahaa qarannimadii iyo astaantii baa fahal lagu siiyey markaasay risiq waxay ka doonayaan ciddidaa hoosteeda iyo meelaa wax laga raadin bay risiqa wada raadinayaan waa maqiiqayn mid walba markaasuu leeyahay ciyaalka intay yihiin maxaa adiga kaaga xiran shalay madaxaa wada aydan ayaa idinla xisaabtamaya ood weliba dadka madaxa ka wada gurayseene meeqaa baarlamaan idinku maqan meeqaad ciyaal aad xaalufisaan idinku maqan meeqaad nin waxgal ah ama jenaraal ha noqdaan ama baarlamaan ha noqdaan imise dad ah oo waxgal ah oo dhig iyo dadnimo laha idinku wada maqan oo aan meel aanaan ku sheegino subax walba inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun aan lahayn war yaad wax u qabateen ad wax ku sheegataan dirac ayagii baad iibiseene asay habarna allah ciridkiina ku yaal iyo meeshaa kasoo wada jeedaanba xaaraan yahay isku wada timid waryaada caawa gabdhii la gado kurdida u shaqaynaya kurdii bay gabdho u shaqeeyaan soomaali u yaa baday carab inta la dhaafaa kurdi guriga loo dhaqaa markaasuu habeenkiina kaarikeeyaa mid madaxa markaa weydiisan shaqay doonteen aayadda tilmaanta waa tee gabar cawrad ah inta la dhoofiyo in waddan kale inta la geeyo ay ka shaqayso aayadda tilmaanta waa tee nin raga shaqada waaba loo uumaye war cid idinla xisaabtantaad weydeen aakhira ilaahay hortiisa yoomalbacadka yoomalqiyaamaha markii la taagtaageen ilaahay hortiisa idinkudoo xisaabinayna ilaahay ka baqi maysaan oo ummad ka xishoon maysaan oo dadnimo nooga baqi maysaan oo ehelnimo nooga baqi maysaan oo waxa nagu socdo dhan adikaa nagu dhigteen odaga un-k doofaar dhalay odaga un-k how doofaar dhalay haddaadan xiiranow aadan meesha ka tegin waa inay dowladda soomaaliya laba optionba ay kusoo caddaysaan ninkaasi ilmaha uu leeyay waa baaba-ay waa in la soo weydiiyaa dowladda eritreyana waa inay soo su-aashaa waa in la su-aalaa ninka annaga saakay inta noogu soo dhiibay kuwa yaga maangaabyada ah ee duruucdayada iyo dadnimadayada iibinaya ninka ii soo faray adeer waa in la soo weydiiyaa meeshay eritrea etoobiya ay ilmahanu dagaalka ku galeen soomaali nebi maxamed waa inaan inta isku tagno aan soo su-aalno oo aan dhano waryaa keen caddayntiisii waryaa waa la ibamgareeyey caalamka kama aysan dhicin waddan cunaqabatayn inta saaraya diyaarada 9 saac habeenimo intaasoo gantaal in lagu garaaco 40 gantaal diyaarad ay ku garaacday oo naf iyo maal basaal la isku wada raacay oo dadnimadaydii iyo qarannimadaydii lagu soo duulay oo yara saakay waa inay dawladdu ay ka soo jawaabtaa ciidanka meesha jooga ciidanka maxaa kaa gala maadaad dirsaday ciidanka maxaa kaa galay dabeerayow isku yimid oo wada faqaaqlu laayo oo bilaahi oo tallahi annagaa idin caayayna waddanka gudihiisa markaa idinkugu nimaadana idin caynayna adeer qaranku beenbeen kuma imaaninin cawrada gadooyin qaranka waxaana la yidhaahdaa musharaxiinta maxeed badbaado qaran musharaxiinta mooryaantaa la idin yidhahdaa musharaxiinta gabdhaha iibiyaa la idin yidhahdaa musharaxiinta dirac iyo gogarada furtaa la idin yidhahdaa asaa saakay wiil yaroo inta nidaam laga soo dhigayo asagoo ciidan ah oo dagaalamayo oo abaal aan ku qabno badii iyo magafiyi ay ka fakadeen baa saaka waxaa le hala soo sheega inta ihe wiilasha eritrea jira etoobiya ka dagaalamay weli wadnahay farta waxay uga hayaan gumaysigii iyo wixii lagu hayn jiray weli farta uga hayaan markaasay gebigooda wadnuhu boodboodayaan wadnuhu cad idinka fulaysanaa macallaa idinku taal waxaasaa na soo wada xukumayay oo dal inta aan u dhiibanay madaxa noo ahaa waxaasaa dal intaan u dhiibanay madax annaga noo ahaa aan u wada jeedno annagoo dhan war dadkeeni baa la garaacayaa xoolay noo malayan inaan nahay war dadkii baa la garaacayaa war waa la igu soo duulay war afrikaankan meesha ii farfadhiyo sanka bagafka weynlu muxuu ii qabtaa meeshaan si-aad lah ilmihii baa ila taraya loo dhafay because waxaa la diidaya in la isla xisaabtamo wacalaykum assalaam waraxma soo dhawaada in la isla xisaabtamo waa la diidayaa wax kalena lo السلام عليكم هلو حليم أباي مكو ساقب سمايا ما يفهمتين ورا إن لغو لا حسابتمو بادي دنتهي هاي
ولا هذه odagi kenyaatiga waxa loo sheegay hebel waa mareexaan yaale mid kale daarooda leh mid kale hawiyaale mid kale diraale heer waxa la gaarsiiyay inta loo tago la bamgareeyo ayaga lagu bamgareeyo farmaajo meesha isaga tago war waxaan u wada jeedno cadaan yaanaan indhaha ka dadanin qaranimada yada iyo cirdiga yaga ninka ku soo duulay oo aan u jeedno in ummadad ehelada yada ama annaga naga tirsano ehelkayaga oo meel lagu xasuuqayo aan u jeedno indhaha waxba yaanaan ka lalinin wax xaliima abaay macaanto haddii la qabto ma waxay sameeyay u malaynaya ma aqaan ku soo celi hadda ma ila socotaan waxa loo baabi'inaya dadkaas xuduudka jooga madoobe geeda naar ha loo gumeeyo oday baa meel isla soo istaagaya geeda naarna wasiirka amnigaa la yiraahdaa waa isla soo taagaya markaas wuxuu leeyahay wixii meesha ka dhacay waa in guddiga loo saaraya maxay yihiin guddiga loo saaraya odaga geeda naarow guddiga loo saaraya maxay yihiin 9 saac oo habeenimo inta la ibamgareey oo xoolahayga la bamgareey oo satellite-ka caalamka oo dhan ay u wada jeedeen miyaa waxaa la soo baaraya in la waxeeyo geeda naar dadka haddii qabiil dad wax loogu qabanaya ay jirto haddii qabiil uu dad u qabanaya uu jiro madooba waa nin daarood ah kuwa la duqaynaya habeen barkii loo soo dhacayna waa kuwa daarood ah hadduu qabiil shaqaynayo markaasaan waxaasoo dhan annagoo u jeedna inta is indhatiray baa waxaa leenahay ciidanka waddanka intuu leeyahay la soo sheego ciidankii unbaa faad lagu siiyey adar waa la isxirayaa samadiidow dabin baa ku dhiman baana la isku qaadaya ama boodbooda ama boodboodinina ama caytama ama soo caytaminina midowga mooryaanta midowga gabdhaha gatay midowga gabdha gade googarada gatooyin googaradii baad inta furateen oo dhiibiseen baa waxaad leedihiin ciidanka waxa maqanaa la keenay adigoo Kenya ka baqaya adar anagu Kenya kama baqayo baarlamaankana nin Kenya degan xataa uga galkeeda degan yaa dawladda dhexe ee Soomaaliya lagu soo darin waa in ka fiirsasho loogu fiirsadaa xataa hadduu habeen aada waa inaan loo soo dayn doofaarku dhalay ama doofaarta dhash wallahi habeen anaa ku soo yatay u dhooftay yaan qaranimada Soomaaliya marnaba loo dhiibin war maxaa loo waay 300 iyo inta soo xildhibaan baa joogtay maxaa loo waay hal xildhibaan xataa khudbad inta jeediyo soo istaaga banaa soo istaaga maxaa loo leeyahay xageed la jiraa xagee lagu maqayaay maamul goboladii waa aamusan yihiin caasimadii waa aamusan tahay habra inta la soo kiciyaanaya baroorta haye ilmihii isbitaalada ku jira cid aadaysa lama arko dawladda wasiirka caafimaadka wasiirka arrimaha gudaha waa inuu inta tago meesha dhexdeeda ayna tusaan ra'iisul wasaare waa inuu amar wasiiradiisa uu siiyaa adar meesha waxba adikuna noo fadhiinina filada dhexdeeda waxba farfadhiinina waa in meesha inta la tago adar la soo arko adduunka lagu garaacay waa inay idaacadaha TV-ga xumo qaranka oo meesha fadhiyo fadhiidka adar waa inuu inta meesha tago uu soo ogaado barnaamijkana laga soo tabiyo inaad filada noo fadhidaan ma ahan dawladdu waa inay ficil ayaduna ay samaysaa tuuga aruurtay awo hooyooyinkii qaandada 30 baanu rabnaa gaalkeeda 30 awo gabdhihii maqnaa ma weydiiseen nimankana wada iibgeeyey gabdhihii ma la weydiiyey gabdhahaad iibgaysan dawladda iibgaysan ma la yiri meeqa dawladooda laga soo gaday ma la yiri meeqay tiradoodu la agtay ma la yiri waa ta 4.5 loo qaybiyey kuwa reeraha ayaga ku jira oo diro ka ooyaya meelahaas oo la gaday kuwii la gaday ku jiray gabdha daarooda ku jira haye war tiradu intay ayd ma la yiri boqolkiiba 30 maqiiq habar walba waa soo ordaysa inta dhakayshanigiisa ilowda ayadoo baalada ka baf siinaysa soo ordaysa boqolkiiba 30 aan rabaa boqolkiiba 30 xaq ku qaadat maxaa ku qaadat حساب ما بقى دجالنا محاد كو قاضت بقولك يبقى صدر محاد كو قاضت ارتجاجي بقى اللي يبيني ولي انت قطك تيمي ويديس ورميقا قبل الدو في السين ما تراضين دولة دفر ما كان لويدي ميقا ويل بالوضع ميقا ناقد دو في دين ميقا قرضية كستومية كيشالي قبدين وعليكم السلام ورحمة الله ميقا كيشالي إيا كستومة قبر الله يضعي قبدين ميقا قرضات بعد إيبسين هذيك يايد ويدي naagii boqolkiiba 30 rabay haweenka qaranka haday noqoto iyo haweenka gobolka banaadir jooga haday noqoto meeqa gogoradooda nimanka soo iibiyeen meeqa kayshali bay soo iibiyeen hal soo weydiiyay nimanka madaxweynihii hore hal soo su'aalo
inta googaradood u gaday inta kayshaliyuu soo gaday inta kastuumuu gaday gabdhuhu intay caddaadkooda la ekaayeen markaasaa caddaadka maqan ee wiilasha loo keenaya laakiin asagoon caddaadkii kastuumooyinkii uu gada uusa soo sheegin caddaadka gabdha dadka maqanna loo sheegi mayo asaga iyo afarta halkaa gararku inta wada caddaadeen aad moodid inaysay u taagnaayeen halkaa iyo halkaa balaayada ka soo guday odda waxaan iska marayay xataa cillaanaa lasoo marsadaa cillaanka madow haddaad daawo madoobaysada diideen cillaanka inta marsataan nuq isku siiyo cillaan madoobaa jiroo geedaha iyaga ka baxa duurka iyo ka baxe xaaraaya wada saa u taagtaagan habeenkii ma seexdaan googarada ay iibiyeenaa la weydiinayaa ilmo googarada iibiyooy ciidankooda maalin allaaliya maalintay meesha ugu xun taagantay inta soo fariistaan wacalaykum assalaam waraxmat soo dhawaada maalintay meesha ugu xun taagantay inta soo fariistaan waxay leeyihiin waxaa weydiisaan dowladda waxaa weydiisaan waxaa la weydiiyaa ciidanku waa meeqo warkay annaga nagula hadlaayeen maalin warkay shisheeye kula hadlayaan kuwaa waxay ku leeyihiin waqooyi baa gurya laga dhisaa guryaha kenya laga dhisayaa iskale guryaha ugandha laga dhisayaa iskale warshadaa laga dhisay gurya inta laga tagaa warshada laga dhisay ma qarankaan la xooginaya lata ma qolaan qaranka dhicin baa jirtay kenyayay ku dhisan tahay alla maxaa been la sheegaya faataadhug iyo qabiil aan soconaynin ya qabiil aan soconaynin iyo faataadhug waa nagu disheen caqligu waa diiday habraha baraflahow hoostiina isbitaalada xamar waxaa yaala ilmo soomaaliyeed oo diyaarada lagu soo garaacaa yaale haddaa run sheegaysaan u taga oo soo arka oo idaacadaha naga tusa ilmaha adigoo madaxa u salaaxaysaan laakiin inta meel soo fariisataan ayaguna waxaan rabnaa 100% habariba habartay ka bishishan xun tahay oo ay ka nidaam xun tahay baa muqdishada joogta habariba habartay ka nidaam xun tahay baa waxay joogtaa maamul goboleedyada habaruba habartay ka xun tahay baa baarlamaanka soomaaliyeed ku jirta maxaa ragga loola yaabaya habruba tawfiiq ma leh habar walba habarta kale ka cararaysa aniga 100% rabnaa intay isu soo maqiiqaano naasaa derbiyada ku soo garaacaan ilmahoodii aan habeen barkii la garaacaa nimanku saasay u ooyaan soomaaliyeed meeshay kici lahaayeen ay dhihi lahaayeen war waxaan aan wax ka doono bay habar walba waxay cunug bay gaba cunugaan hoostaada jiifa war yaa soo dilay male war yaa soo garaacay male war maxaa loo soo dilay male cunugaan war yaada qaada geeya xaafadii u geeya dowladda xataa u geeya caaw ina farmaajo u geeya ina farmaajow wasiirada aaway ra-iisul wasaaraha u sheeg aaway roble wasiiradaadu dowladdaadu xukuumaddaadu adar xukuumaddaadu waa in wasiirka arrimaha gudaha muxuu qabtaa talow asaguna habeenkii aawa kii caafimaadka kii ku xigay un baanu arkayn maxay ahaana loogu diray kara caafimaad ku-xigeenka aawa wasiirka caafimaadka muxuu u tegi waay aawa tii xuquuqul insaanka iyo haweenkan madax u ahay lahayd xaaraan wada bishashan xun wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxa dowladda ku jiraaba wada ya ma tagaan xogtiina wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaan keeno intaasaa iiga sugantihiin wax yarba idii jiraa xuquuqul insaankaana xuquuqul insaankiya haweenka dad u shaqaysaan waxa la laynaya waa hooya maxaad ugu tegi weyseen maxaa u raadi weyseen ya maxaa loo dooni waay baarlamaanka wuxuu leeyahay kuwa xuquuqul insaana ma aadaan meelay fariistaan markaasay inta dabada dhulka dhigaan bay wax walba ismoogaysiinayaan yaa idin soo dooranayo mar dambe idin raba yaa idin soo dooranaya calaamaa la idinka ifiye ya calaamaa la idinka ifiye yaa u malaynaysaan inay inta idin soo doortaan aad u imaanaysaan war bal biya aawe qaada waryaada barnaamijka u geeya xaafadihii mudaaraadka ka soo qayb gala dadka yurub jooga haddaa imaan kartaan faransiiska kuwa jooga waa noo dhowdihiin soo jaba annaga dhan waa tegaynaa meeshaan isugu tegaynaa kenya iko laala sidii loo leeyahay fakiya waa inaan saarnaa dhammaantiin soo baxa waa inay dadka dhanu soo baxaan waa in la isugu yimaada safaaradda kenya waa in la isugu yimaada waa in il wareertay la noqodaa waa inay dowladda kenya haddaanan annaga qarannimadayada anaa u istaagina oday garku intaa cad yahay oo diracaygii iyo kayshaligaygi iibiyey wallahi inuusan cadaawo iga saaraynin inuusan cadow iga saaraynin waa inaan dhammaanteen soo baxnaa waa inaan soo kacnaa oo kor isku soo qaadnaa oo waddanka annaga aan ilaalinaa tuuga beenaalaha adeer ha la arko inuu been sheegayo adeer hiilla maanta dalka u baahan hiilla maanta uu nooga baahan yahay xuduudka soomaaliya annagaa iskale 24 ka sac hal nin oo siyaasi oo ka hadlaya maaragteen oo leh war beeshaan waxa ka dhacay waa qalad
kii xumaa odaga xumaa xiirni kadabka ahaa bay waxay leeyihin hebel baa soo sheegay hebel baa weli ayagoo ka hadlaya maarta gubuura kenyaati ka wada baqaan halka il baa noo furan waxay ku sheekaystaan halka il baa noo furan haddaan halka il iska xirno carabtii hadda waa naga soo gurmaysaa halka il kenya haddaan iska xirno meelay dhaqaala noogu imaanayo lama arko bal ka wara ilaaha idinku dhaarsa ninka nuucaas u hadlaya waxaan rabaa dowladnimo inaan u dhiibo sow annagu ma waalin sow annagu dad habaaran ma nihin yaa war sow annagu dad habaaran ma nihin markaan anigu aan rabno kaas inaan wax u dhiibano sow annagu maskaxdayadu faariq ma ahan war adeero wixii waa laga ilbaxa dadka maamul goboleedyada gobollada joogow kulligiin bannaanka u soo baxa gaaridii galbeed laga sheegaaliyo gontahaaga ka fiiri gado bamgarayska ku dhacay adeer ha u malayninin inaad adigkuna ku nabadgalaysaan wallaahi qolo ku nabadgalaysa inaan la arag oo bilaahi inaan la arag gebigayaga saasaan u wada daadanaynaa waa inaan inta kor isku soo qaadno adeer aan cagaha dhulka ugu dhifano dowladda kenya doofaarta dhasho caalamku noo wada cabiidinayaan caalamku noo wada cabiidinaya odaga xumoo xiirana waa seedigis ma ninaa seedigis maanta ku waxaynaya ma nin aniga iqabaa maanta farmaajo u digdiglayn laha haddaan afrikaan ah yaa madaxweyneyga baa nin u digdiglayn lahaa waxaa la dhihi laha gabar soomaaliyu qaba war yaa ka fuqaan dhihi lahaa yaa ka fuq madaxweyneyga war yaa asaa odagii baalkii ii shakeeye hubura kenyaati ah naagtii ina adeertiisu ku soo diray asuu yidhi war yaa iga fuji dadkan ase iyagoo maqiiqan annagana soo galeen war caqliga iyagu maanaan u jeedin ma maantaan anigu inta nin un qabaa haystay ama loo soo diray waddanka baan saaka farmaajo hortayda lagu cuni lahaa war yaa waxaan dhihi lahaa dowladdaa kale war yaa abbaar asaan war yaa ku diri lahaa asagii annagii nal ku soo diray markaasuu asagina annagoo maqiiqana soo aaday ilan xawayaankaa faaruqaan nahay 30 sano buu caqliga iyagu wuxuu u furanaa digsi inala ku suba iyo reer hebelah digsi daba dureelo camal buu u fara meesha ugu xun ee ama aan islana waa ugu jilicsanaa inta saasna loo maroojiyaan annaga dhan isku soo wada kogayna war waxaan horaan ugu soo daalay ordo iga daa ma lihin qabiil hadduu naf leeyahay 30 sano qurac iyo qansac waa ku keen way ordo naga tag male markaasuu mid walba saasi inta u hagan yahay wuxuu soo xadamba la soo jarmaadaya male war waxaan waa lagugu fahmaya male war caqligan foosha xun leh la meel tegin male asagiya adigii kuula soo ordaya midowga gabdhaha iibiye midowga gabdhaha iibiyow googarad iyo kaysali intaad iibisaan soo xisaabiya googarad iyo kaysaligi aad wad gadeen baa la idinka rabaa nin inuu dhinto iyo inuu xabsi ku jiro intaba nin ragu u yoo ilaahay boqol uga dhigaye gabdhihii aad gadeen oo kurdida aad ka gadeen meel keera meel soo saara inta saaka gurdi layga gaday oo carab xumo doofaar dhala la iga gaday oo koodii dhaqanka xumaan la iga iibiyey baa wuxuu leeyahay wiilashii meeshay jiraan ha la soo sheego wiilashii intay tiradoodu ahayd ha la soo sheego war halkaanaa dagaal ka socdaa war dhabar jabintaan aad igu furtay xay tahay war ay dhabar jabinin war balaaya habeen barkii igu soo duushay war waa dhibanahay meeshuu aadi laha ma aadayo asuu inta soo orda wuxuu u soo ordaya aabbow kan yar iga celi kan weyn iga celi kan yar aan iska celiya farmaajaha la aado laa ilaaha ila allahu muxamadan rasuulullah cawr waa ayaga madax adagka war qabriga inuu idinku dhigo soo ka baqi maysaan war saanu islaamnimo ma aan xataa diin islaam shaqo kuma leh culumadii waa ka aradanoo culuma ma jirto siyaasi waa ka aradanoo waa waxaad aragteen oo saakay inta meel soo istaaga ciidankoodii dadka weydiinaya waa meeqa ciidankoodii unbaa faa lagu siiyey xuduudkoodii unbaa faa lagu siiyey haye habru waa kuwaan arko googaradoodii iyo kastuumadoodii iyo rajastiinkoodii la iibiyo aan dadka weydiinayn maxaa la weydiinaya ilaa farmaajo ilaa wadnaa farmaajo ku qarwi war waxaas carabaa ku waalatay oo kenyaatiya kuwaas wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ninaan asaga ayna dul soo noqdaan qabrigayga gaas ku shida أنا مركل إذا كقول علينا نام فرمات أين دوي ما بقول ولقينا إسلام مننا قوم قبر جيجا حلا ولا بقى يحرك الناس يدينيا ما لحق سدو هذا ننا أصلا أين توجي بيو مساجد كعيارتها اللي قد هي صفات كفوش حلو والله وصل أضاق حيرانو هرورا كان يتصدق أنا وصل بني أنت الله يدي قبنينين ضلكنا وحروبية كان يرتجع عندك عصارينا
بري الصبحي تلاهذا محايد كعجة سبدي إيا أحد إيا إسني صدح بري بعد كعجة حتى أركي ويسان هبورة كياتو أويا كوري مرة كوتشرنا كوبجرت مع الأربع ديار حرة ديار فرة هبين كنا علق وعبا علق عمو كان يلا صار لو قطو تيون تعبو وحف إسكوسية رجع يقولنا إنا مرق مارقيين وأركي معفر ما تشوي عيسريا معي من ريحان وعيسريا مالي والب معي وعيسريا مدابو أدونا مدبان كله مدابو رج أبال بأكل إرجنا لكن أضو أبال كذي تلذ إذا ما أضط لكن أضاقي شلي كسار إذا صار ماشى إذا كيرك اسمعي إذا كسر دري محمد سياد بروقها وعذري أبتو هيدين ما يلصعطه ساكنة واحد إيبين يسن ديك ولا ليهم بد إيبين يسن ضلك يجي يقولنا وإيبسين وردي وعيرتين وبيمال وعيرتين oo beesha jareer weyne waa ciirdeen oo beesha gaalcel waa ciirdeen oo beesha baajuun waa ciirdeen oo beesha raxaweyne wax kulayd waa ciirdeen ummadii kismaayo saa u deganayd fantashilo far ardi baad ka wada dhigteen yaa dhul raba kaala yaa dhul raba dhulkii ummadaha islaamiyeed baa saa ugu wada habsateen kiina caqliga la waa fitataag iyo lugataag iyo madax taag iyo daba taag iyo madax fiiqare intii naasa isugu arurtay caqli malhidin oo dadnimo malidin nimanka ayadoo ilmaha la bamgaraynayo Kenyaatigu certificate-ka u siinaya ayden magacna maanta halkaas baad ka taagantiin adar dalku waa xoroobaya wallahi oo billahi oo tallahi gabaru hadaysan naga soo harin dalku waa xoroobaya adna magaca mees ku yaala magaca Soomaaliyeed meesha aad dhigtay buu ku yaalay ilaahay waxba lama aynta gacanta saa kugu soo dhigo ya gacanta inta saa kugu soo dhigo inaan xabsiga kalkata ka tuuro ضفار باري إياه مقالة مقدسة لقطة ببري حتى يسن عد مر أيسن إذا قوصنين أو لامي كركراي أنا ضف إذا قوصينين عراي هاي أنا حشات كإيه حشمت دعان الخين ومضي للكو دي بعد بعدين أو قريو دي بعد كد ديشين أو ضدك واد ليسين جري روينا ديشين أو قال تعال بعد ليسين أو من ريحان بطرف كقلقتين oo umadii deganaayo dhan badof umad wax ka taqaan inta in la eg ah oo dadnimo ah oo wax ku leedin lama arko waad soo hoyateen calaamaista tallaay waad soo hoyateen markaasaad faaruqna wada tihiin waadna baabi'iseen oo dadkayagii baabi'isay oo dalkayagii baabi'isay Kenyaati meeshii ku geeyaan dhowri waa baxayaan Kenyaati wallaahi oo billaahi oo tallaay gabadheeda daysan naga saari Kenyaati barnaanka istaagaya gobolka Jubbaland ee aad joogtid iyo gada inta ka dhaxlana waa la xoreynaya adeer rag iyo dumar saan unay waa saan intifaa ugu niraano baan Kenyaati iska soo saarayna waxba yudin wiilal yar oo ayada ku jira wadaada Kenyaati yudin waa raadinaya waxba yu Kenyaati gurigiisa gudihiisa ugu jiraan dadku raadinaya aniga iga raadinaya waxba aniga yu ibaabiinine oo wiilasayda ama ayada ku jira ama banaanka joogo uusan isku baacinine adeer Kenyaati waa tagaya xagga galaysan wixii niyo cadaynana waa la wadaya safaaradda hadda waa soo gudbisay information-kii niyo dhan safaaradda waa soo gudbisay maxaa naga rabtaan Soomaaliya safiirkii saaka waa ooyay Soomaalidii waraaqaha ka doontay ee loo geeyay buu saaka u cidirsanay wila wax walba waan idin ogolno diyaaran idina ilaa wadankayaga ay ka baxaan Kenya wallahi ina naasixanayn oo billahi ina naasixanayn shacab weyn oo mar labaad baan idinku celinaya daafa meel kasto aad ka joogtaan Ingiriiska waa in kulligan aan isugu nimaadna safaaradda Itoobiya ee Djibouti baashi ishak Kenya odaga xumo Djibouti afar xabo dastuurka inta ku soo ilaalisa irir baynu nahay irirnimo cida koobiya ku siisay lama arko irirnimo cid koobiya ku siisay lama arko hawiya waa ad ku lumiday irir baan kula aysaad u lahayd irirna lama ihid karkaarka adduun iyo aakhira waad weydaarisay daaroodkii waa weydaar Soomaaliya dhan waa weydaarisay isku soo do irir mi ihid hal nin wasiir soo door Ismaaciil Baranbarow sirtaadina waa haya ninka Cumar Kortuf waaga oo gabadhaada qaba markuu uu aanjabayo taliyaha ciidanka booliska ee maxay ay toonay booliskiina markuu uu aanjabayo sirteed waa haya uu leeyahay ana dabada ka kaarikaynaya habeen baan ku soo galaya ku dhiiminaya Ismaaciil Baranbarow laakiin Kenyaatiga shala Soomaaliya lahayn Kenya waxba kuma samayn Soomaaliya maanta maaragtay indhaago shanta inay idqaysay adeer
waxaad ogaataa inaan ilaahay ka baqa moogiye aadana inaanaan ka baqaynin soomaalina aan u nahay dadka kakao waxaa tahay mareexaankaa la dhambeeyo suu farmaajo u tago oo xoolaha saa u daldala jiray baad ka mid tahay mana tegayo ma tegayo 4.5 weeye ma tegayo wuu joogayaa haddii allah awoodala u ogolaado ciddii nici lahayd ciddii muraar dilaaci lahayd ciddii fuuri lahayd ciddii waxaysmi lahayd farmaajo waa joogayaa جاسي إيرو وي والله وبالله دولة صاغة عباطي يقول لك يا هذا كست أنت صعلق وأنت درقسي وعير هذا عفر تعبوه هل كان جربك عضاضة جوجر ذي بيال بو أنت صاوع وعير هذا ورياضة جوجر هذا صف عن قصة جدا جوجر هذا ما قد كرتان ها فرمات عيرية أسامي البلغمبر حال وقفت حبضنا والجو كان واي هذا ما يلصعطه حبضنا والجو كان واي صوح ساكية كينيا تايغر وابريا ديارتي وافرنا ديار دحيرة دوتشي ديارة هبور على عبي الماء ابو نهيان ضفار دشي مع العربيين مركي اللي اسكو جاي ادير انغا الهي انا كبقنا موجي ادنا انغا دبا دلف وما نقونين مانا او اهانينو ومانا اهان دونو gabiga yago isku duuban calanka Soomaaliyeed baa naga badan kaas ninkii diido muraara dilaac beerka lagu dhaaf kaaskii diido beerka lagu dhaaf kan iibiyayo gabdhii aad iibiseen meel ku sheega gabdhii la soo gaday hal keeno xuduudkana waa raysanaya hooyooyinka barooranayo hool inta ijaarataan habartii alleheed yahay oo aqrabeel aan rabinay calanka iyo ciidda aan ku safaadine nimanka ku soo diray waxaad weydiisaa gabdhii ay beecgeeyeen wiilashii meeshay ku maqan waad ogtihiin adna waad ogtihiin ilaahayna waa ogya maxaa ku soo haray nimanka gogaradaha gadayo way ka fashilantay saakay baad Kenyaati raacdeen wallahi baan cid inta la iga xilo idin dhiibanaysa la arag baarlamaanka xukunka fadhiyo inta soo noqonaysa waa sheeg anu inta aan raacsanahay ya gabdhaha waa ogtiina laga dhadan ka sheekeyn jiray xagga iska dhig wiilasha waxa soo noqoraya ninka la yiraahdo Amin Jasow alkaasa ka salaamtullah wala ina hiro u tahay il badana ugaaskiisa waagi la dilay xataa waa ooyahay yaawiya wala kaasiba yaawiya soo malahayn daawiyanimo dad wax loogu qabanay markii ugaaskiisa la dilay xasan shiiqa madaxweyne ka aha war nimanka waa laayeen war dadka waa la laayeen markuu lahaa waa tii la diidana كو أمين تسو ضلحة يا وهيرو والله وبالله نيري كي وإنا نقطك توا الصقع محاكو صار ويلك عبد الفتاح لي هذا وسيركو عجاك كاسان ليك صدح ذا نين horta waa in la soo celiya odaga mursal inkastoo sagaaridi nabiga ba ogeyn laakiin hadana waa taageersan waryaa mursal maxad ciyaalka ugu tagweys isbitaalka joog war maxad nimankiina aan soo tiriyo ciyaalka isbitaalka jooga ugu tagweysteen war maxad u soo eeg weyseen war ma Kenyaati aad ku ka baqaysaan baarlamaanka waaba ognaay kuwa gada ka soo jeeda iyo kuwa galmudug ka soo jeeda meel kastay ka soo jeedaan inay satay kar waa ogeyn adigu ma tagtaan maxad u tagweyseen taga waryaada ciyaalka madaxa u soo saraaxa hooyooyinka meesha ku jira samir iyo iimaan soo dhax iimaanka la idinka qaadi aawa islaamiga gobolka banaadir hooyooyinka ka ah gabadhii jawaahir ay meeday maya jawaahir habraha markaarti waa soo bixisa markaa rabtidna waa daysataa waa kula socdaay ilmaha isbitaalka ku jirnaayaa u tag wallahi inaan shaqo dambe noo qabanay xamar unu qaal inaad tiraado waa kula socdaay u tag ilmaha Soomaalinimo hadaad wax ka taqaanaan wallahi inaan cid aan ka xishoonayo la aragay gabigiina habeenaan idin soo wada taagaya baarlamaanka marka la ugu celinaya waa in inta damiirka iyo dhiig iyo uus kale waa in ay tagaan warya campaign soo miidin ma isbitaalka ku campaign garaysaan inta wanaagsan inta xun markaas aan arki lahayn yaa idin dooranaya xaraaya wada wajiga baaqulayaano la ina bab idin kaga siirayne dulliyo isku wada yimid mixishoodayaal iyo ya war maxaa ugu tagi weyseen soo campaigner ma campaigner man waxaad u campaigner garay weysan annaga xataa qalbigaad noo dhislaydeen inta ciyaalka dhix istaagtaan maxaad u dhiwaysan samir iyo iimaan Allah idinka siiyo hooyooyinkii ay ka dhinteeno ay ka dhaawacmeeno kuwii ka dhinta agoonta ay noqdayo wallahi billahi markaan arko cunug yar oo qabuuraha inta fadhiyo hooyadiis maalmo dhan wallahi oo mata cunug waxa ay ugu soo dhacay marka qaarkood waa ooya wallahi oo billahi indha intaas waa ay guduutaan madaxaas ay xanuuna wax kale ila ma xanuuna dalkayga dayaca iibiska
midkana iibinaya gabdhihii laga xishoon mayo oo xoolihii laga xishoon mayo oo dadnimo lagaaga xishoon mayo oo maalin walba waa soo taagayn ilaahay baan idinku dacweynaa markaan tukana xataa ilaahay baan gacmaha kor ugu taagnaa cunug yar oo saa qabriga hooyada u fadhiya markaan arkay wallaahi oo bilaahi inta muraaro dilaac mararka qaarkood baan baroortayda aniga xataa isaga baxaa wallaahi inaan been sheegin anaa saan u ooyay indhaha xataa i madoobaadaan yaa cunug yar oo qabri inta fadhiyo hooyadiisa xalay la joogtay diyaarada saa u bamgaraysa markaasuu qabrigii korkeeda saa u fadhiyaa aabba waxba kuuma galo wallaahi hooyo unbaa laga nool yahay markaasuu habartii uu ku soo cararayana waa ka hor dhimatay ilaah baan idinku dhaarshay dadka waxaas u jeeda oo ilmahoodiiyo qabuuraha ka ooyaya u jeeda ninka saa kale kenya uu ugu durbaantamaya sow nin cawaana ma dihin war annaga dhan miyaan sixiranahay war miyaa nala falay ilan saan kuma fayoobini 30 sano waxaan aan iga harayna maxay tahay in kaartan 30 sano iyaysatay wallaahi billaahi maxamed siyaad bare dambi inaan ka galno taasaa idin cadaynayso 30 sano aan dabada dhulka dhigi la'aan ilmahayagii gaalaa guratay qof u doodaya male qof u dacwoonaya male kii kale ee xabsiga ku jira cid raadinaysa male gabdhihii ooyaya ee inta ceebka la geeyey carabtu maalin walba habeen walba ay fuusho silsiladaha lugaha uga xiran wax isweydiinaya male maxaa kuu saara kuwa dalka inta ku waxaysamay ayada ku jiro ayaga isku baaba'ay wax ka hadlaya male kuwana bamgaraynaya waa reerba oo yaa kula saasaan wada baabaan war Soomaaliya in kaartan lagu dhacdo waa maxay haddana midda kale labaad wallahi farmaajo nooga dhici doonta ilaaha baa iiga sareeyo qofka dulmanaha ee la dulmiye ilaahay ducadiisa waa ajiiba wiilkaas islaamiyada maskiinka ah oo wuxuu ka qaba aan la arag inuu wax iyaga u soo celiyo ma aan bay 24 saac dabada ku dhageen ilaahay ilaahu an cadaabin war waxaan xagee laga habaaray war Soomaaliya xageena la ka habaa ilmaayigi gaalada haysata oo wada hooyooyinka dhibaatada wada haysata way isku caayayna meeshaan isku gurman lahay dawlad u dacwata male safaarad u dacwoonaysa male dawladnimadiiba ma rabno oday guriga dhisto dabaqyo dhisto guriga isugu faanaya baa loo ordayaa dawladashiisa ay u ordayaan warkii inta baxa caawada inta baxo lacagtaan haysta Puntland inta la tago aan halkaa bixi ay toonay guri oga dhista Puntland guri aan oga dhisto waa hanti aan dalka dhex galiyay haddaan anigu aakhiraba ka baqi waayo ilaahay ka baqi waayo Soomaaliyeed wariyaada qaada barnaamijkan telefoonka muxuu xasano ma ifahmt dhibka iyo rafaadka iyo dhakafaarka ilmahayagii baa qurbaa isku dilaya ilmahayagii baa xabsiyo ku jira ilmahayagii baa la guranaya ilmahayagii baa dhibaataysan hooya laamigii kor istaagan 4 bari markii wadanka la isku dhoodhooba habar baa leeyahay soo bax inta lacag $2 ama $5 loo tuuro qarannimadeeda mara war iga tag meeshaan ku nasanaya warnaagaha Soomaaliyeed oo dhibka dhaaf doofaariya lagu guuraayo dhibka dhaaf doofaarayo isku yimid dhibka dhaaf war hadaa dacwo qabtaan meel fariista war hadaa dacwo qabtaan meel inta isugu tagtaan waxa tiraadaan dawladdu ha noo timaado waa la idin imanaya ilmihiin waa la idin la siinaya war nimankan ilmahoodii dabadaha geystay idin waarin meeqa idin ilmaha nimankan naagoodii ciyaalkooda keenaan xagee jooga naagoodii ciyaaladoodii war dhamaantiin daafa caalamka saa u joogtaan ugu sugantiin war waa idin salaamay dadka Ingiriiska jooga isku soo baxa hilada maanta kala la isaga baahan yahay walaalkii ina u hilisid maanta loo baahan yahay dadka gada jooga waa dhibaataysan yihiin dhowr iyo 10 sano la dilayay oo la diyaarada lagu garaacay oo dawlad ka hadasha aysan jirinin ilma adeerayaalo inta la soo baxo aan ugu hilino ehelnimo aan ugu hilino Soomaalinimo aan ugu hilino qarannimo aan isugu hilino aan u soo baxno warkaayaga dhibaataysan hadaan dhibaatada annaga aanan wada jir aanan isaga saarin wallahi wuusan hal qof kaligiis waxba saari karin aan wada kacna dhamaanteen war inaan tuuga farta ku fiiqna aan isku dayno war haddii siyaasaddu dadku mucaarad iyo muxaafid in la kala yeesho waa xaq laakiin saan wax lagu wada Soomaaliya sidaan wax laga bedelo war qof walba laba malaa'igood laba askari baa ilaahay daba dhigay oo aan looga tagayninin kuwa aniga icaayo ya asxaan weyn bad ii soo bisan waligin isoo caay dhamaantiin daafa caalamka saad ugu nooshihiin qof walba waa in uu istaagaa qarannimadu waa shay muhiim ah adiga ku ah aniga ii ah dhamaanteen oo isku duuban noo wada ah qof maskabku yaan ku salaamaya
وإن أن دمانتين أو إسكو دوان مظاهرات كاس أن كوضا أبوريستي سبضنا مظاهرات كاس أن كقيب قلنا وإن أن صوبحنا وإن أن نفتين رنط أشاقنا وإن أن توقع دبقني لفكا إسكعلنا لايفا كتشراهي سوك وإن أن دمانتين بنانك سو استاقنا ميل نوهرت لما أركو wax noo haray lama arko qil dambo noo haray lama arko taxtiga soo wada taabanay culumadu waa aamusayn caaw hadii ano dhinac ka banaan ama ka qaawan aan soo arko culuma soo fariisanaysa hadda markii la isbaabiinayna hal nin lama arkayo gabar fanaanada heesaysa markaas waxa la lugteedu waa qaawanay meeshay ka boodo ma aragteen culuma soo istaagaysa hadda markay dhibka taagantaan hal nin oo hadlaya ma arkaysa war culumaduna noocaas ay noqotay wax siyaasiga waa dika arku jeedin war dalka yaa iskale annaga iskale dhamaantiin oo iska duuban dafa caalamka saad u joogtaan hal la soo baxo qarannimada meesheeda laga adkay nin walba iska celi qaranka